أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله waxaan soo gaarnay casharka ugu dambeeyo runtii casharkaaniti waxyaal waxaa jira aan ka boodaya jiro oo aan u arkayo yani waqti dhumis yahay haddana waxaan u arkayaa inay muhiim ahayn markaad basic aad baranaysid laakiin waa laga yaabaa mar qof waa laga yaabaa inuu u baahdo laakiin insha Allah waxaa laga yaabaa maalinka maalin in cashar oo soo diro oo laga yaabo waxyaal aan hadda aan ka tagay casharooyin qaarkiis aan ka tagay laga yaabaa in aan soo diro future-ka waa update gareena insha Allah laakiin waxa hadda aniga aan casharayaasha soo qaadateen kulli soo qaadatay waa waxyaasha ugu muhiimsan oo basic laga rabo inaad fahantaan ayaa insha Allah ni baray haddana insha Allah waxaan ogaanaynaa ama baranaynaa script-kaanita hadda u jeedid iyo waxaan insha Allah ni tusnaa NodeMon si loo isticmaalayo NodeMon kan dev dependencies-ka waxaan global install ku sameeyay local ayaan ku sameeyay dev dependencies-ka ku jiro marka script-kaaniti waxa ku jira inta test waa garanaysiin markii testka badnaa waxa la isticmaalaa markii test la sameeyo laakiin waqtigiisa ma joogtiin waqtigiisa ma la gaarin oo adinka yani test sameynaysiin ma la gaarin casharooyin nooc kale waaye hadda waxaa laga yaabaa inay aragtaan iyo maxaa sameysay inta waxaan sameeyay because of haddii oo kan hadda ka bixiyo oo inta ku qor because waxaan rabaa inaan need to see NodeMon si loo isticmaalo iyo waxyaal qaarkiisa script meesha script ku qoran wuxuu noo taray inta server aan dhehna soo qabo serverna waxa rabto ku qor server ku qor wixii rabto ku qor anyway بعدين labadan dhibac aan tilmaamaya ka bacdi waxaan rabaa inaan ku qor inta NodeMon ka bacdi waxaan rabaa inaan index.js ka in ku qor because weli index.js ma sameynin laakiin reason ka hadda error kaanito oo igu jiro waxay tahay because waxaan u baahnaa inta markii imaado calaamad comment inaan keenan si oo errorkaas iga baxo laakiin waxaan u baahnaa index.js inaan insha Allah ayaan sameynaya moogu meel qalad maray inaan ku sameeyo meel qalad maray inaan ku sameeyo meesha waxaan furay oo node module ayaan ku furay maray haddii kale waxa waaye waxa ii galaa magaciisa index-ka marka gudaha waa inaan soo baxo meel oo caadi oo ever aan click siinaya intaan ku sameeyo index.js okay index aan dhaho inta just wax caadi oo normal ayaa yani oo console log ya ayaan ku qoraa inta Jamal aan dhaya control aan dhaho aan yareeyo kan aan yareeyo kanne aan badiyo okay alright marka waxaan rabaa console loganit Jamal kan oo igu soo baxo magaciisa terminalka waxaan dhahayaa node index.js okay Jamal ay soo baxay haddaan dhaho Xasan aan ku darayaa control aan dhaho markasto waa inaan maxaa la qoraa waay maxaa la node then index markasna qoraa علشان ساس ayaa waxaan rabnaa markasto marabno inaan qorno marka waxaan rabnaa in NodeMon kan server ahaan inuu markas markii wax badalno inuu serverhane isdamiyo علشان saas loogu talagalay NodeMon kan wax ku caawinayo so waxa muhiimad noo ah inaan markii oo wax yar kan yaray waxyar israel naqda kasi waa araba muhiimadu xitaa markii oo NodeMon soo install grace local dev dependencies-ka aad ku soo install ku sameeysid scripts meesha script-ka ayaa waxaad ka sameynaysaa magaca animation server ku qoray علشان saan anigu fahmo ogaado بعدين waxaan ku qorayaa NodeMon index.js aan dhahayaa so markii rabo inaan ka shaqeysiyo aan daaro waxaan dhahayaa npm aan dhahayaa fir npm aan dhahaa ka bacdi waxaan qorayaa server hal shay ayaan ii tusnaa hadda server saas u qortay inter dhahdid wax ma shaqeynayo clear and wax ma shaqeynayo reason-ka oo why saas u qoray npm server u qoray why saas u qoray why saas u qoray waxay tahay because script-yaal qaar ka mid ayaa saas wax kuugu shaqeynaa oo saas wax u isticmaali kartaa special in case haddii oo مثلا kasoo qabo start script ayaan waxyar isiya waxaa laga yaabaa back end ayaa sameysay waxaa laga yaabaa inaad
heroog meel laa jiro oo host ku sameynaysa back endigaada developer sameyntahay meelaa jiro oo mathalan kasoo qabo oo host ku sameynaysid markii host ku sameysid heroog way badan yihiin horta koow heroogaaseti waxay maxaa la fiirinayaan scriptka start wax ku qoran marka starkaaseti hadda daan ku qoro inta maxaan sameeyay hadda inta ku qoro control s aan dhaho hadda inta ku qoro meesha servaha oo ku qoro start ku qoro enter dhaho isla markii waxa ii daarmaayo magaciisa indexkii ayuu iiga shaqeynaa laakiin mar kasto haddaan dhaho inta waan ka bedela control s aan dhaho still يعني inaan qoro waa npm start inaan qoro waay okay marka noocan oo hadda back json oo inta ku qoro start waxa loogu tagay markii oo host sameynayso hadda host garaynaysid back endiga host garaynaysid ayaa hostyaal qaarkooda ku dhahayaan waxay fiirinayaan meesha start ku qoran dee heroogii meel laa jiro weli ma gaaray adinka justa waxaa loogu talagalay inaan saas ku qortid bacdeen node adis index.js adis waxa bond garaynaysaa enter point-kaada scriptkiisa laakiin anaga waxaan rabnaa mar kasto save marabno so waxaan sameynaynaa haddaan rabno mar kasto inuu node montkanity wuxuu nuga caawinayaa markaan ka shaqaysiinayno ma dhihi karno server ma dhihi karno saas aawsi raali noqda server ma dhihi karno waa inaan ku qornaa run ka bacdi server aan dhihinaa enter aan dhihinaa marka enter dhahno isla markii server oo node mono noo shaqeyna hadda inta imaano oo Jamaal Xasan control s dheh fiira isla markii anagoo oo sida hadda arkaysaan oo anaga oo dhibka nooga haysto waxa weynaa inta imaano terminalka inaan dhahno magaciisa run npm start dhan waxaan dhan ma sameynayno ka markii sameynaysa waxa nodemon kuga caawinaa markii backend sameeyay mar kasto waxa bedelaysa inta wax ka bedelaysa inta waxa gelinaysa always wuxuu ku cusbeensiina ama ku daaraya servaha oo ku daaraya okay markii saas noqoto in case darb servaha inaad demisid control c oo sida oo ayaa taawnaysa isla markii servaha waa demi bacdeen waxa sameey kartaa waxyaal kale ta sameey kartaa darbna install gareysid magaciisa package yaal kale saas oo soo install ku sameynaysa marka saas way halaasa raba inaan insha Allah ku soo xiro aad u yar tahay waa laga yaabaa aad u yar yahay clipkanity laakiin halahan le bis ku toobarta just waxaan laga rabaa bis ina magaciisa sida waxa uu qoray u qortaan ka bacdi insha Allah waxyaal waxa jira aan ka tagaa jira oo u arkay inuu muhiim ah laakiin future-ka hadii oo loo baahdo muhiim ah waa ku soo daraya insha Allah waxaan rajeynayaa khayr waa ogahay casharaha way badan tahay muhiim waa inaa fahantaan sida wax loo isticmaalayo sabr inaa lahaataan weligiina yani caajis maskaxdiin ka bixiya haddaad ka heshaan cashirkaan please share garee Facebook ka share garee qof kasta u sheega ina cashirka aad dhiganaysaan inay tahay cashir aad u fiican oo haddaad ka heshaan haddii oo dhib jiro comment sameeya cashirka website-ka aad ka hesheen aad ogtiin special website-ka waxaa ka helaysiin somaliprograms.com meeshaas aad ka helaysiin badnaan cashirooyin aad u badan ku jiro haddii aad ka aragtaa meel kale in case Somali Programs cashiraha oo la soo gelinayo waa free way kan waxa blash way ogaada qaar waxa jira oo blash oo waxaan ka wadaa dad qaar waxa jira oo af Soomaali ku hada macallimiin af Soomaali ku hada jiro oo cashirooyin qaarkooda oo blash ayay sameeyeen waxay ku xiran tahay ika website-kooda laakiin website-ka Somali Programs mid kasta aad daawanaysid ama yani aad gelaysid ama enroll ku sameynaysid waa bilash waxa ugu talagalay dadka oo yani awood u haysanin inay lacag bixiyaan oo u baahan yihiin inay wax bartaan insha Allah ayaan ugu talagalnay marka waxaan waa basic waaye
ma ugu talagelin cashirkan insha saan oo bilaawan igu sheegay dadka oo weligooda javascript ka siinin ma ugu talagelin because inaad javascript fahmaysid inaad fahanto waaye inaad oo aqoon u leedahay waa javascript oo waxyaal samaysay yani waxyaal application samaysay ayaa muhiim ah ka bacda dhowtii waa fahmaysaa npm wixii ku tarayo insha Allah khayr aan rajeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.